waxa imtixaanka horta la geli waqtigiisa waynu sheegno waa 27 bisha June waxaan imtixaanka u fadhi laga qaadayaa waa fasalada afraad dugsiyada sare inta kale waa qiimeyn aan standard 8 markaa waa qiimeyn waxaba waa la wada qiimeynaya waxa weeyii fasaladii ka horeeyay labadii teeram ka horeeyay sanadkii hore ayaa lagu qiimeyn doonaa bas in lagu kala hadii la 8 ka la qiimeeyo maxaa la soo qaadanaya weey 7 kii baa la soo qaadanaya 7 kaagi maxaad ku gudubtay waxa kii baa lagu mataqaanaa lagu qiimeyn doonaa marka waxa weeyii fasalka ka horeeya Soomaad garan marka waxa weeyii waa inuu ardaygu dadaalaa ayaa loo baahan yahay ilaa waxa weeye qiimeyntu waa COVID-19 kii imtixaankiisu haddana sanadka dambe ma geli sidoo kuma sugayo marka waxa weeye ardayda form 4 kaana si caadi imtixaankooda form 4 ka u geliyeen 27 bisha June haduu Ilaahay idmo iyadoo la buuxin doono shuruudihii guddiga heer qaran soo saareen oo numberka ardayda oo la yareyn doono meel oo social distance la fulin doono maaskiskii wixii dhan oo la qaadan doono shuruudahaas oo dhan ayaa la fulin doona haduu Ilaahay idmo marka waa ka adeegay sanadkan hawsha imtixaanaadku sanadkii hore runtii marka waxa weeye waxan kale oo dhanna waa iyagana waxa la rabaa in laga daba tago oo markiskii sanadadii hore ayaa qiimeyntooda lagu sameeynaya marka runta sanadka waxa madax xafiiska imtixaanaadku inuu hawl badan oo fara badan madaxa la galay ilaahayna noo fududeeyo runtii waxa weeye natiijadiisi waa la soo gudbiyay sanadkii hore labadiisi teeranba waa la hayaa wasaaradda haysa labadiisa teeran baa qiimeynta laga sameeynaya halkaas ay ka soo baxaysa waa ardayduna way fahansan tahay haddii is carab tireen ardaydooda is yeeliyeen way garanayaan waxan awalba tabulation waxa loo soo gudbiyaa wasaaradda waxbarashada kii baana laga soo nuugaya Soomaad garan marka waxa la wax dhibaato oo jira haba yaraatee ma jiro arday waliba fasalkii uu ka soo gudbay waa la hayaa natiijadiisa imtixaanaadka isaguna wuu og yahay maamulihiisuna wuu og yahay wasaaraduna way og tahay taas baa halkii imtixaan sanadkan laga qaadi lahaa haduu suurtoobi waayay in form 2 laga qaaday imtixaan foomkiisa wuxuu ku gudbay baa yaala kii natiijadiisa foomku baa la soo qaadaya sidaas baa loo eegaya kii gudbay uu gudbay kii dhacayna uu dhacay halkaas baa arrintu maraysaa waxaan jecelahay maanta in si caadi ah loo fahmay wasaaradda waxbarashada oo dhan hareeraha naga taagan tahay marka ardayda waxa weeye waa inay sidaa u fahmaan form 4 ku imtixaankii isku diyaarinaya fasaladii kalena waa la qiimeynaya waanaga imka bayaaminay waxa jeer soo noqoto media ku soo noqonayay waxa la qiimeynaya waa maxaa la qiimeynaya kee la qiimeynaya waxa weeye adeer form 4 ko adiga imtixaankii waad gelaysaa haduu Ilaahay ilaa inta kalena waa sida ha ilaa ulada waa la qiimeynaya haduu Ilaahay idmo